waa arin kale oo qatarteeda leh halkan waa xaafadda Damaley oo kamid ah xaafadaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose dadkii deganaa naftooda ayay kala carareen waxaana si baaxad leh ugu sii qulqulaya biyaha webiga Shabeelle oo karkaarada jabsaday waana xaafadii saddexaad oo fatahaada biyaha webiga si baaxad leh u saameeyeen gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa keenay agab kala gedisan oo looga hortagayo biyo baxada webiga Shabeelle hase yeeshee baahida weli way taagan tahay waxaana waqtiga ku sii xiga webiga uu sameeynaya fatahaad hor leh si gurmad caalami ah loogu fidiyo dadku biyuhu barakiciyeen ayaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Axmed Yuusuf iyo xubno kamid ah maamulka degmada Afgooye waxa ay hay'adaha samafalka iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqayaan in xaaladda degmada Afgooye wax laga qabto laba xaafadood oo kamid ah xaafadaha ugu waaweyn degmada Afgooye ayaa biyo hareeyay xaafadda 21 Oktoobar iyo xaafadda Dhagax Tuur oo waxay kamid ah degmada ah oo waxya ugu waaweyn kamid ah ayaa biyo galay adiga waxaan isleeyahay fatahaad inkastoo mar hore ay ahayd laakiin hadda weli ilaa adiga wax 400 adiga nus kilomitir wax ku dhow ayay biyihii gaareen welina ay sii socdaan maamulka degmada iyo kan gobolka ilaamaha amniga iskaashanay waxa ay gaarsiiyeen agab oo isugu jira jawaano ilaa 10 kun ku dhow iyo badiiladii carrada lagu soo faagi lahaay iyo baabuur iska rogayaal ah oo ayagana carradii ka soo daabulo meelaha oo qalalan si dad jawaanadii ilaan meelaha biyaha hareeyeen malahan carro si marka dadkii loo gaarsiiyo oo jawaanadiina loo xiro oo jawaanadii carro loo shubo iska rogayaashii ayaa waxay ka keenayaan meel magaalada ka baxsan tuulooyinka oo degmada kamid ah ayagana degmada hoos yimaado oo ayagana biyaha ay saameeyeen waxa kamid ah tuulada Balbaley Shukurow dhankan iyo Awgoye tuulooyin fara badan oo degmada hoos yimaado dhankan kala hadana Mareerey Sabiid Caanoole Moordiile ilaa waxaan isleeyahay tuulooyin badan oo ku teedsan ayaa biyihii saameeyeen marka dawladda federaalka maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo hay'adaha adiga deeqaha bixiyaba waxaan dhihi lahaa in dadkaas gurmad lala soo gaaro hadda percentage ama tirada aan ku qiyaasnay dadka guryahooda soo baneeyay ilaa 5,000 oo qoys ayaan ku qiyaasnay waxaan u sameeynay laba goobood oo dadka si ku meel gaar ah ay u degaan xaafadda 21 Oktoobar dadka ka barakacay meel ayaan u cayinay oo doolaaw meel ay dhahaana la dajiyay dadka ka soo barakacay xaafadda Dhagax Tuurna waxaan dajinay xeradii hore ee onodka saraakiisha booliska ilaa iyo muxuu ahaa heer federaal ama muxuu ahaa heer muxuu ahaa degmo intaba maamulka degmada bahda saxaafadda waxgaradka kale muxuu ahaa goobta jooga intaba waa in salaamaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib maanta shirkan jaraa'id waxaan u qabanaynaa degmada Afgooye dhexdeeda ugu qabanaynaa waa dhibaatada ka dhacday ama muxuu ahaa ka jirta degmada Afgooye iyo nawaaxigeedaba fatahaadu waayahan dambe way socotay runtii muddo maaragta dhowr bilood ayay qaasatan degmada Afgooye ku socotay laakiin maanta barnaamijkeedu aad iyo aad muxuu ahaa uga sii daray waxa la wadaaga deegaan aad u fara weyn oo kamid tahay meesha la yiraahdo muxuu Sabiib iyo Caanool baa Sabiib iyo muxuu ahaa yaanoole ilaa iyo muxuu ahaa raqaygi dhammaan dhulkaas oo dhan muxuu ahaa fatahaadu way gaartay waxaan rajaynaynaa insha Allah taala baaqeenu annagu hadda meeshan waxaan ugu talagalnay in aan gaarsiino ilaa heer federaal ilaa heer maamul goboleed iyo hay'adaha internationalka intaba
ayaan waxaan doonaynaa inaan gaarsiino barnaamijka maanta ka jira degmada Afgooye waxaan codsanaynaa baaqeenaas in muxuu ahaa la qaabili doonaan aad iyo aad u rajaynaynaa gudoomiyaha gobolka wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha koonfur galbeed dhammaan waxaan u sheegaynaa deegaanka Afgooye caawa inuu ku sugan yahay marxalad aad iyo aad u liidata lana oran karo boqolkiiba muxuu ahaa 35 inay muxuu ahaa dadkii ka qaxeen xaafadahoodii way caawa ka hooyanayaan muxuu ahaa hoyga ayagu ay lahaayeen inay ka hooyanayaan meel cidla ilaahay amarkiisa bay ku timid ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu muxuu ahaa wax wanaagsan ugu bedelo laakiin waxaan leenahay dadka ha loo gurmado ha la gaarsiiyo muxuu ahaa waxyaabaha caafimaadka waxbarasho dee markii horeba aad iyo aad isaga liidatay roobkiina hadduu sida muuqata ayuu wuxuu noqon karayaa kow waxaan rajaynaynaa baaqaas in muxuu ahaa koonfur galbeed qaabilaan federaalka sidoo kale ayaguna waxaan leenahay dadku dhammaan waa dadkii madaxda loo ahaa deegaanku waa deegaankii sidoo kale ayagana waxaan leenahay yaan la isku hadlayna si muxuu ahaa isma oga ah ayaan waxaan codsanaynaa in dadka lagu gurmado saddex waxaa noo ah hay'adaha samafalka kuwa localka NGO-ga internationalka intaba waxaan leenahay deegaanka Afgooye maanta haddii aad waxaad ka shaqaysaan ay yihiin bini'aadanimo ay yihiin waxaa maanta yaalla arrin aad iyo aad muxuu ahaa serious u ah waxaan codsanaynaa arrinkaas inaad 24 saac hadda lagu jiro inaad jawaab cad ka soo bixisaan ilaahay idinkiina waa rajaynaynaa inaad ka soo jawaabi doontaan insha Allah tacaala baaqeenana waxaan rajaynaynaa inay dhammaan ama muxuu ahaa heer federaal ama heer maamul goboleed ama heer muxuu ahaa hay'adaha caalamiga intaba waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inaad baaqeena arki doontaan wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi Cabdiwali Cali online